sheekh mukhtaar cabdulqaadir maxamed oo inoo soo jeedinaya muxaadaradu waxaynu leenahay sheekhu falyatafadal wa anta mashkuura. لكن وأيها دم بعدما خلافات بدن ويمين وحفلة نفطر كذا قبشة بالخلاف وشبهات وظهورين علماء مركب حيكون غصبا علينا إن الباديان الدلو والودري صديق حفلة مشروعية هي شبابه أي كذا شبابان شبهات كحفلة الغفورين markay ka hadlaan kadib inay u gudbaan haddana sida caadada ahaan jirtay ka hadalka siirada iyo axwaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam. kolka intaynan ka hadlin dhalashada nabiga wax yar waxaan ku hormaraynaa xafladan mashruuciyadeed iyo shubuhaadka ay ku fureen qolooyinka ka soo horjeedaan iyo shubuhaadkaas jawaabahooda baan ku hormaraynaa. sida aad la socoteen ummadda muslimiinta intooda badan caalamka meel walba ay ku nool yihiin waxay dhigaan xafladatan ay ku weyneynayaan dhalashadii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxayna ka kooban tahay xafladda sida haddaba aada u jeedaan dad muslimiin ah inay kulmaan meel wanaagsanna ay ku kulmaan aayado qur-aan inay aqriyaan ay kalimaad halkaa ka soo jeediyaan oo ku saabsan siirada iyo axwaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ujeeddada ka dambaysa ay tahay dadku inay bartaan nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa iyo akhlaaqdiisa inay bartaan, halkaana marka ay ka dhex helaan maxabbada iyo jaceylka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mutaabacada nabiga calayhi salaatu wasalaam. isla markaana markaa la aqriyo qasaa'id oo nabi ammaan ah oo ayaga naftarkooda runtii qalbiga ku siyaadinayaan jaceylka iyo maxabbada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxyaalaha unbay xafladda ka kooban tahay. xafladda ayada markaa dowladaha islaamka dhammaantood ayagoo ajnaastoodii ay ka kala duwan tahay caalamka way ka dhigaan, xataa shacab ma ahayn nidaam dawli bay u dhigaan, taasoo marka muujinayso qiimaha ay ku fadhiso xafladan qabashadeeda ee lagu naamusayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam.
انت كدب شريعة الإسلام كمركي لفظيه وحيآت أي أوينيسا واختيادا إيو أماكنتا أي كنح دعان وقائعدا إيو دعدوينك واوين أي كنح دعان مثلا معلمة الجمعة شريعة الإسلام كآت أي أوينيسا وحالي هذا وعيد الأسبوع تضواتك أي عيد أتهي معلمة الجمعة وحالي هذا أفضل أيام الأسبوع وياه معلمة الجمعة تضواتك مالميه سمالمة أفضل لقبضان وياه ومدى المسلمين تا ويوينيان معلمة الجمعة محا معلمة الجمعة اللو وينيان محيطة هاي حكمة كدن بيسوينين تا معلمة الجمعة اللو وينين تا أسيقو تلماما النبي عليه الصلاة والسلام وحوصو هذا القاضي وحيالا آدي آدو فربضا وحكمدها وحيالها وصو هذا القاضي معلمة الجمعة ومعلمتي أبونا آدم لا أبوري ومعلمتي أبونا آدم توبدي سلا أقبلي ومعلمتي أبونا آدم أرلد لسودجيي ومعلم أي لحدة إذا كجرت صاعد لي هذا ساعة الإجابة وأدونك وافق صاعد أصيغو إلهي برينا يبريدي سإلهي أجيباي ومالين أي دعي دونتو قيامة مالين الجمعة وحيالها أبو نبي صو هذا القاضي وحيالها مرك نبي صو هذا القاضي أنت ضبطا وحي علاقة يحرير إلى ليهن أبونا آدم ومالنتي أبونا آدم لا أبوري ومالنتي أبونا آدم توبدي لا أقبلي ومالنتي أبونا آدم لسودجي وهكذا يعني وحلو وينينا يوم مالنت الجمعة وحويان dhacdooyinkaas waaweyn baa maalinta jumcada gudaheeda ku dhaceen shariicadii baa marka waxay weyneynaysaa waqtiga iyo zamanka waqaa'icda waaweyn ay ku dhaceen sidoo kale waxaad garanaysaan dhammaantiinba bisha ramadaanka inay shariicada aad u weynayso waa bil oo runtii lagu tilmaamo inay tahay afdalu shuhuur bilaha 12 bisha ugu fadliga badan waaye bisha ramadaan وبال مركي أيضا دلته جنة البابدي السديد لفوره البابدة النار تنا لحر حره شياطين تواوين للسلسلة ذيو وبالعبادة الجوده إذا الغص مانا أي كفر لبضنتها بلها كالعبادة لسه مانا يوكا محا فضلك أنت عليك بشر رمضان كالله فضلي إلهي سبحانه وتعالى أسيقو تات الماما يروحوا يري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشر رمضان وحا الله فضيلة وحويان وبش القرآن كالسودجي با إلهي سبحانه وتعالى سودجين القرآن وحي تهي قعدة وين أو قيمة بدن سودجين يا مركة وحي كسو بيغانتي بل رمضان بيكسو بيغانتي ما دام قعدة وين بشر رمضان كأي كسو بيغانتي با رمضان كي مركة هلكا وحوكا كسبضي فضل إيو شرف إيو قيمة كسبدي قرآن كأسيقو دمستيران بالسودجي بيت ليراه بيت العزة وسماء الدنيا كيا لسودجي سدح إلى باطن سنة أيهالك كجسو دجانا بحسب الوقائع ولبا أيضا رمضان أهد حدنا وحال سودجي هبينك ليراه ليلة القدر ليلة القدر سنة كهبين دي سهبينك وقفض لقبضانها وهوين عبادة الله سمايو أي كفضل بدنتها يكون بلاد عبادة الله سمايو أي كفضل بدنتها ما حيصير كنا قطعي وهوين كقرآن كلا سودجي وهي ليلة القدر سودجين القرآن وحيكون على ليلة القدر ليلة سيدا ليلة القدر وحيكون قطعي أفضل ليالي السنة سنة كهبين دي سهبين كفضل بدنها يعني واختيارا إيو أزمنة oo ay ku dhaxdhaceen dhacdooyinka waaweyn ee qiimaha badan shariicada waqtiyada noocaas oo kale way weynaysaa waxaad garanaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam maalinta la yiraahdo yawm ashura maxaa loo weyneeyaa markuu magaalada Madiina tagay oo uu arkay yahuuda oo weyneynayso yawm ashura oo cibaado qiimo badan ku weyneynayso soom ku weyneynayso uu weydiiyay maxay tahay weyneynta maalintan yawm ashura aad weyneynaysaa waxay ku jawaabeen
ومالين دعدا وين أي دعدي ومالنتي نبي الله موسى يرير بني إسرائيل إلهي بدباديي فرعون يقوم في سنة إلهي غرقيي أو ماشيي أو هلاقي دعدا وين بمالنتها دعدي كل مالنتا لمدك مركي لجارو سند وصوريجو سند جورو مركي لجارو نعمة بان حسوسنا مركز صار مركز وينينا أو صوم كان أنكو وينينا شكرا لله تبارك وتعالى صدا بيره نبي عليه الصلاة والسلام السجيب الصومي يوم عاشوراء صحابتي سنوحوا أمري إني الصومان وحو نيري نحن أحق وأولى بموسى منكم ويري نبي عليه الصلاة والسلام هذا اليهود تهين إذنكم أنك موسى إذنك حق بدن وإذنك أوليسا حي لموسى النبي إلهي أنبيدي سكمت بوءها رسول إلهي رسوشي سكمت بوءها أنا جنا صدا صوك لا إلهي رسوشي سكمت أهي وولالكي أنك أمرك إذنك أوليسا نبي الله موسى صدا بنبي كوجبابي عليه الصلاة والسلام السجيب الصومي صحابتي نوحوا أمري إني الصومان يوم عاشوراء مركا محي فضلك كو يلتي محي وينين تكون بضتي وحكرا معها دعددا وين عجائب تلا او قيمها بدن او مالنتا كو دعدي ويا كذلك رسولك عليه الصلاه والسلام دلشديسو وا دعدا وين او عالمي او اديات او قيمه بدن خليغو دشي كونكا وحا كظاهرتي نعمه وين او قالي با كونكا كظاهرتي نعمة مركا إني إلهي أوغم هاد عليان الدومضة ويوينيان وقتها ونعمة قالقة أي بعضي رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك أبي قتادة أسيقى السومي جري مالين والبو إسنينا مركي لي رمالين والبو إسنينا محاد أصنطا وإسنين تأوينيسا محويري ومالنتي أنا قال لي دليبوي ومالنتي قرآن كاللي مسود جيه يوكله دلشديسو نبيغا مدنان سينايا دلشديسو وينينايا وحونا كو وينينايا عبادة وين أو صوما وحا صومك لمد wax walbo ilaahay loogu dhawaado in dhalashada nabiga lagu weyneeyo kaleey salaatu wassalaam sadaqa bixinteeda in nabiga dhalashadiisa lagu weyneeyo ka sheekeenta siiradiisa laga sheekeenayo in dhalashadiisa lagu weyneeyo ka sheekeenta umada looga sheekeenayo ahwaasha nabiga iyo kifaaxa iyo halganka iyo dadaalka uu ka soo maray dacwadan fidinteeda in laga sheekeeyo in lagu weyneeyo waa la mid in umada lagala hadlo maxabada iyo jaceelka nabiga iyo mutaabacada nabiga kaleey salaatu wassalaam in umadi lagala hadlo taa in lagu weyneeyo dhalashada nabiga kaleey salaatu wassalaam waa la mid nusuusta markaad aqriso wax badan baad ka dhax arkaysaa yaani waqtiyada ay ku dhaceen waxyaalaha qiimaha leh inay shariicada naftarkeedaba ay weyneynayso kale inta marka way nagu filan tahay weyneynta waqtigan nabiga kaleey salaatu wassalaam uu dhashay markii la gaaray in la weyneeyo nooc oo cibaadaadka kamid ah in lagu weyneeyo arinta inay tahay arin shariicada meel ku leh inta marka waxaan kaga hareynaa dhanka iyo adilada shubuhaadka markaan eegno qolooyinka diidan in waqtigan oo kale markii la gaaro la weyneeyo dhalashada nabiga kaleey salaatu wassalaam oo lagu weyneeyo ka sheekeen nabiga laga sheekeeyo iyo sadaqaad la bixiyo farxad la muujiyo taa in nabiga lagu weyneeyo qolooyinka diidan oo kale maxay ku diidan yihiin maxay tahay shubuhaadka ama waxyaalaha ayaga ay ku dhaliilsan yihiin shubuhaadka ay ayaga soo qaadaan shubhada ugu weyn waxa weeyaan laba shubha ugu weyn markii la fiiriyo shubhada ugu horeysa waxa weeyaan shubhada la yiraahdo shubhatu tark macnaha sax nabiga dhalashadiisa waa weyneeyo soom waa ku weyneeyay laakiin kuma weyneenin sadaqa la bixiyo iyo in asaga ahwaashiisa laga hadlayo iyo amdaaxdiisa in la soo qaaday iyo qasaa'id in la qaaday iyo sida hadda loo weyneeyo iyo nidaamkan haykalka hadda loo weyneeyo dhalashadiisa waa haykal asaga uu san sameeynin oo uu ka tagay waa haykal ay saxaabadiisu ka tageen waa haykal taabiciinta ay ka tageen hadduu khayr ahaan lahaaneen ayaga nooga hormari lahaayeen ka tagidda ay ayaga ka tageen baa waxay tusinaysaa كيفيدان هذا وحلو وضو إنيسان ونكسانين شبهة مركا وحالي إرادا شبهة التركب علي إرادا شباب تيدا وحويات قاعدة
وعلمك أصول فقهك لغصو قاضاء ومعروف آيات جرته ووليب إجماع قاعدة با شبهة جواب قاعدة وحويان ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيء من الأشياء ليس دليلا على حرمته كتجد النبي عليه الصلاة والسلام وكتجي الشيء أشياء ذا كمدة أما الصحابة سكتجين ترك جاس دليل أمنا قنا يشيء إنه حرامية مسألة الترك لما الدليل سلو شيء مرك الله ده هو حرام وإن الله لا دليل شيء الله حرمه النبي كتجي مجرد كيد أيضا دليل كل شيء أن الله هينين شيء حرام كمنا قنا sababtana waxa weeyaan tarkiga asiga wuxuu ku imaan karaa wajiyo ka kala gedisan siyaabo ka kala duwan ayuu tarkiga ku imaan karaa wuxuu tarkiga ku imaan karaa nabiga inuu ka tago shayga asagoo ka baqaayo ummadiisa shayga in lagu waajibiyo salaada taraawih buu nabiga ka tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ooga tagay maxaraamba maya ummadiisa in lagu waajibiyo ka baqay sidaas uu nabiga ooga tagay calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan buu nabiga ka tagay tabaaduc daraadiyuna ooga tagay tarkiga wuxuu ku imaan karaa tabaaduc daraadi Adi ibn Hatim al-Da'iba nabiga uu soo wafdiyay wisaadadiisi ayuu nabiga ooga tagay calayhi salaatu wasalaam Adi ibn Hatim al-Da'i muxuu ooga tagay wisaadadu inay xaraam ka tahay la tabaaduc daraadi buu nabiga ooga tagay calayhi salaatu wasalaam haykalkan hadda ihtifaalka loo dhigo waxa suurowdo inuu soo hoos galo labada nooc hadda aan sheegnay oo umada in lagu waajibiyo haykalkan inay sameeyaan ka baqideeda inuu ooga tagay tabaaduc daraadi inuu ooga tagay haykalka hadda nabiga dalashadiisa loo tacdiimiyo sidoo kale tarkiga wuxuu ku imaan karaa kacabsi nabiga uu ka cabsanayo fidno shayga waxa suurowdo nabiga inuu ka taga asagoo fidna ka cabsanayo wuxuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam kacbada oo qalooc uu kaga jiro qabaa'idii nabiyullaahi ibraahim calayhi wa ala nabiyina salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu kacbada dumiyo oo uu dhiso oo qabaa'idii oo nabiyullaahi ibraahim habkeeda inuu ku soo celiyo wuu ka tagay arinka wuu iska daayay asagoo arinta Aisha kala hadlayo wuxuu yiri ya Aisha lawla qawmuki hadithu ahdin bijahiliya labanaytu al-ka'bata buy Aisha qoomkaaga ba waxay yihiin dad goor dhow jahiliye ka yimid oo hadda soo islaamay waxaan ka baqayaa marka kacbada hadii aan dhaho waan duminaya qabaa'idii nabiyullaahi ibraahim baan ku celinayaa hadaan dhaho inay khalad ii arkaan oo ila dagaalamaan oo qaar ayaga kamid ah ay diinta islaamka ay dib ooga baxaan oo ridaabaan taaban ka baqayaa mooyaano waan dumin lahaa kacbada qabaa'idii nabiyullaahi ibraahim baan ku dhisi lahaa buu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam wuu ka tagay marka arinka asagoo ka baqaayo fidno ka baqaaya ayuu ka tagay waxa suurowdo sheega inuu nabiga ka tago halmaan daraadii inuu ooga tago salaada dhuhr ama salaada casr asagoo dukinaayo jamaacada laba rakac buu nabiga ka tagay calayhi salaatu wasalaam muxuu ooga tagay inay xaraam ka yihiin la nisyaan daraabidii buu nabiga ooga tagay calayhi salaatu wasalaam waatii kadib dib laga baraarujiyay ee la ogeysiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu laba rakac ka tagay waxa suurowdo sheega inuu nabiga ka taga iyadoo dabeecadiisa ay nacayso oo kaliya baashaan la yiraahdo man salugaaleeyhi hilbaheedii oo la soo solay baa nabiga loo keenay si uu u cuno gacantii buu u taagay markaas la yiri ha loo sheego nabiga hilbahan waxa ay yihiin markaas la yiri huwa dhabbun ya rasuulallah wa man salugaalay fatarakahu wa lam ya'kulhu sallallahu alayhi wa sallam uu ka tagay nabiga ma uusan cunin wala su'aalay waxa la yiri aharamun huwa ya rasuulallah rasuul allah ma haram baa hilbahan markaasuu yiri la ma ya haram ma maxaad ooga tagtay qoomkeyga arladooda lagama helo anigana waxaan isku helayaa inaan kahanayo nacayo dabcigeyga nacayo macna saasan ooga tagaya Khalid ibn al-Walid baa nabiga hortiisa ku cunay calayhi salaatu wasalaam asagana uu ka tagay agliga uu ka tagay yaani macnaha waxa weeyaan waxaan nabiga ka tagay daliil uma naqanayso waxaas inay xaraam yihiin waa in qofka aakala uu galaa oo daliil kale u raadsada waxaan inay xaraam yihiin daliil cadeynayo inuu la yimaado weeyaan marka shubhada oo shubhatu tarki la yiraahdo jawaabteeda waxa weeyaan at-tarku la yadullu ala at-tahrim
tarkiga ma tusinayo tahriim ma tusinayo sheega nabiga ka tagay mujarradkeed daliil uma naqanayo sheega inuu xaraam yahay sababtu waa maxay tarkiga asiga siyaabo ka kala gedisan ku imaan karo inuu nabiga waxaan la waajibiyo inuu ka baqay inuu oga tagay tawaaduc daradii inuu oga tagay fidna ka cabsigeedii inuu oga tagay nisyaan daradii inuu oga tagay dabeecadiisa oo kaliya inay nacday sida inuu oga tagay intaba way suurowdaa wama ila ghayri dhalik shubhada marka shubhatu tarki aad bay ugu soo celceliyaan jawaabteedana waxa weeyaan intaas nooga filan wadaad diktoor ah kitaab dhan buu ka qoray mas'aladan mas'alatu tarki la yiraahdo wuxuuna ku magacaabay حسن الفهم والدرك لمسألة الترك بكم جعان مسألة عن لي هذا مسألة الترك سوى نكسن إن الله فهمه الله إدراجه يعني الدليل من غنيس مسألة الترك معناها صار شوف هذا اللبات مركب وحويان حديث صحيحها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحيليهم بدعة والبوة ضلالة بعد النمو والبني وحويان نار بالغمطة نظام كان هذا احتفال كالله ديغو والنظام بدعة سيدة هذا بقى أيضا لك لقادين والضلال كل بدعة بالنبي غيري كل ذا وحي كم التهي من أدبات العموم عموم بفائدين إيسا أيضا لك لقيبين بدعة ومد حسناء ومد سيئة لك لقيبين لنا على قمرايا بدعة والبوى ضلال سيدة سيليه نظام كان هيكل كان هذا وحلور ديغان waa nidaam bidca oo waadan bal bilaaway marka waxa weeyaan sidaas marka nidaamkan uu xaraam ku yahay sida bay yiraahdaan xadiidka marka waxa nooga jawaabay al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah kitabkiisa fi sharh sahih muslim xadiidka muslim baa warinaya markuu sharxay Imam an-Nawawi wuxuu leeyahay hada aam makhsuus buu leeyahay waa aam lafdiga aama macnaha khusuus baa loo jeedaa بمعنى أريجا عموم كفائدينا هدي له له قرينة خارجية أما قرينة داخلية وحو يلنا يا معنى خصوص بو يلنا معناها وحا لغو خصيصها يا بدعوين كحنحن وحيابها لسود دريي نبقى بعدي ساو حنحن أو شريعة أصل إيراد أن كلهم بالوجه دابو أريجا مركا أو عموم كتصينا يوم معنى خصوص إنه يلن كرو لغة العربية آد بي أوجب بحدا قرآن كريم كي وحبا كبحدا أحاديث تائي وسنة النبي نوي كبحدا قرآن كهديان وحكس وقاتنا إلهي سبحانه وتعالى أصيغو كشيكينا يو أمط لها لاغي ودبيل لغوها لاغي باوحي تدمر كل شيء بأمر ربها بوي دبيش قلدا لغود ديري وحي هلاغيس الشيء والباء أي هلاغيس وحينكو هلاغيس ربي إذا أمركي سينكو هلاغيس marka كل شيء markii la yiraahdo shay waxa loo yaqaanaa wixii mawjuud ah wa shay'u indana huwa al-mawjud wax walbo jiro shay baa la yiraahdaa samaawaadka arlada geedaha buuraha xayawaanaadka waxa soo dhan waa ashyaa hatta ilaahi subhanahu wa ta'ala waa shay لأن الشيء ووحي موجود فالله موجود إلهينا موجود وياه نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست قال قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله كل الشيء إلهي والغو إطلاق كرا لأن الشيء وحي موجود عليه هذا إلهينا هو موجود مركز دبيشة هذه كل شيء بيهلاقي سلير هذا موحي هلاقي سعركي مطلقي وإذل بيهلاقتي مجيده بيهلاقي سي مباديه مبوره ما إلهي سبحانه وتعالى بيدبيشه هلاقي كل شيء بيهلاقي لفظيان marka umumka macno khusuus ba hadda loo jeeda waxay halaagaysi ummadii loogu talagalay in lagu halaago bay halaagaysi kadalika qisadii nabiyulaahi Muusa iyo Khadir ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku soo hadal qaaday doontii markay saarnaayeen Khadir waatii doonta alwaax uu ka bixiyay uu doonta xogaa ceeb uu sameeyay xikmadda Khadir sida uu yeelay markuu ka hadlaayay muxuu yiri wa kana waraa'ahu malikun ya'khudhu كل سفينة غصبا بوي وحن صدا ويالي وحا كهوريي دونتا بقر او قادنايو دون والبا قادنايو كل سفينة قادنايو وحا سؤال امرك بقر كا دون والبا هدو قادنايو وحيالينتا او خضر دونتان او وحيالي معنى ما سمينيش لان الدون والبو قادنايو صومان حتى تنوى قادنايو كل سفينة بو قادنايو لفظيقا هدي سيديس اللي سجدايو مركا عام مخصوص ويانو وحا لو جيدا دون والبا اون عيب لهين
ayuu qaadanaya laakiin midda ceebta leh ma qaadanayo waxaa lagu qasisayaa marka kuwa ceebaha aan lahayn baa lagu qasisayaa kulla safinatin buu qaadanaya quraankiyo isticmaalay waa caamun maqsuus kullu bid'atin dalalana nooca soo kala waa bidcooyinka xun baa lagu qasisaya dhanka iyo sunnada iyo ahadiista markaan fiirino nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kullu bani aadam khataa'un wa khayrul khata'in at-tawwabun bani aadam ka dhamaantood waa kuwa gaf badan dunuub baa ka dhacda kuwa gafka uu ka dhaca kuwa ugu khayrka badan waa kuwa toobada la yimaado gafka ka soo laabto marka kullu bani aadam markuu ila nabiga dhahay kaleey salaatu wasalaam ومن بينهم بني آدم كوحانا كل حجروا الأنبياء والرسل والأولياء بني آدم كل حجران أنبياء إلهي ومعصومين رسوش ومعصومين أولياء والله خيب خيب أي وحكدعي كران ويجران وحتى كبائر أي كدعي كرتو خيبنا وحويان محفوظين بالي هذايو ذنب بكمرنا عبا لا كبائر ولا صغائر إله باك إلى علينا سبحانه وتعالى ويجران تاريخ ذا مركات أغرسو صحابي لي رضو أبي سفيان وادقرانيسان سيرديسي maalintuu dhimanayo waa kii lahaa yan lee oynin haddaan dhinto فوالله ما تعلقت بصغيرة منذ أسلمت وكيلها إله بان كل أرتيه ذنب الصغيرة ما أنا كنت تعلقين أو ما أنا سمينين لقصوا بلا ومالنتي أنا أنصار إسلام يوكل أولياء مركب وحاكم دا قوة ذنوب إلهي كحفظية أو محفوظين صغائر أو كبائر متبقى يسنكدعين وكل مع ذلك النبي قال حوليه كل بني آدم خطأ لفظ كان كل حديث كقصة قاضي عام مخصوص وياه كذلك حديث في صحيحة البخاري النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها حبة السوداء شفاء من كل داء حبة السوداء وحي داوؤتها عذر والبا هذا داوؤتها وسيدي اللي دايو حديثك سيدي سهدي اللي سجد دايو ما حد دابك الله استعمالها يعني محا شراب الله استعمالها محا عرب الله استعمالها محا فليب الله استعمالها محا كنين الله استعمالها محا من دابات كقبيل سكال الله استعمالها عذر والبما إذا لقود داوي معناه سيدا اسماء من كل دائم بيدابه أتاي مركا لليه هاي لفظك وعام مخصوص ويا شركة بني آدم كا حرارنا وليه هاي برودنا وليه حرارة جركة مركا يحوق بضطو أي برودة كحوق بضطو عذره ماشا كده شان باجران أمراش هلكا كده شان أوكليا بيدابه أتاي حبة السوداء marka waa caamun maqsuusun sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku isticmaalay oo kale marka kullu bid'atin dalaala noocaas waay bidcooyinka xun baa lagu khasisaya wixii nabiga bacdigii la bilaabo oo cusub waxa la saarayaa miisaanka shariicada islaamka hadii waxaasi daliil yaani asal ay hoos imaanayaan waa la aqbalaya haddii maxaan iraadaay daliil iyo asal baneenaya aysan hoos iimaanaynin la aqbali maayo labadaas loo qeybinaya waxyaabaha nabiga bacdigiisa la yimid oo la soo diriyay bidco oo xasana iyo bidco sayyi'a labadaba way jiraan waxaana u daliila bidcadu inay sida u qeybsamayso xadiidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee nabiga uu lahaa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da ومن صن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها بعده إسلام كدحدي قفك كجديو أو بمعنى بالله سنة حسنة أرن ونكسن قفك إسلام ككسو كرديو بالله جديو سنة حسنة قفك بالله أجر كيدو يلانايا إيو عد والبو أصيغا كقديتي أجر كودي أو كالي أيو يلانايا ayadoo cidda kaga dayatay ajarkooda waxba aan laga nuqsaaminaynin oo kale kadalika islaamka dhixdii qofkii ku jideeyo ku bilaabo sunnah sayyi'a wuxuu yeelanayaa qofka sunnada sayyi'ada dambigeeda iyo cid walbo asiga kaga dayatay dambigoodi ayadoo cidda kaga dayatay dambigooda waxba aan laga nuqsaaminaynin oo kale xadiidkaas marka wuxuu daliil u yahay in la bilaabi karo waxyaalaha khayraadka la bilaabi karo ajarna laga helayo waliba qofkii bilaabay iyo cidii kaga dayatay ajarkooda intuba inuu helayo kale waxyaalo xun oo shar ahna qofka haduu bilaabo inuu dambi yeelanayo cidii kaga dayatana dambigoodaas dambi la mid ah inuu asiga yeelanayo kale wadaad marka ee kamid ah dadka ka soo horjeedo mashruuciyada ihtifaalka ba hadda ka hor wadaad sunni ah ayuu gurigiisa ku booqday
markaasaa wuxuu yidhi bidcadu inay kala qaybsamayso laba u qaybsamayso maxaad u daliilsanaysaa nimankiinaan ahlu sunnada ah wadaadkii sunniga ahaa marka nin caalim buu ahaayayo xadiidkan buu soo qaaday man sanna fi lislaami sunnatan xasana kii kale marka ee mubtadica ahaa wuxuu yidhi sannada xadiidka ku jirto bimacnaa axyaa baa loo jeedaa buu yidhi sunno nabiga uu hore u jideeyey oo laga tagay qofkii soo nooleeyaa laga wadaa buu yidhi wax cusub oo qofka hadda asiga uu bilaabayo ma aha wadaadkii sunniga marka nin caalim buu ahaa raddigina aad ugu fiicano wuxuu yidhi erayga sanna waa af carabi erayga markaad fasiraysid waxaa la rabaa macnaha aad ku fasirayso luqada inay ka aqbasho haddii sanna bimacnaa axyaa lagu fasiro sanna oo bimacnaa axyaa ku imaanayso waxaa lagaa rabaa qawaamista afka carabiga inaad ka soo saarto erayga markaad fasiraysid saad adigu rabto iskagama fasirin kartid macnaha aad ku fasiraysid waa inay luqada ka aqbashaa qawaamiista afka carabiga laga qoray haddaad weligaaga baarto heli maysid sanna oo ku imaanayso bimacnaa axyaa ku imaanayso midda kale haddii sannada bimacnaa axyaa lagu fasiro maxaa la dhahayaa xadiidkii ku saabsanaa qaabiil iyo haabiil qisadoodii qaabiil waa kii dilay walaalkiisa haabiil markuu nabiga ka hadlaaya calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi bani aadam walboo la dilo dembigiisa qaabiil nasiib buu ku yeelanayaa qayb buu ku yeelanayaa cilladdu maxay tahay liannahu awalu man sanna alqatla waa qofkii ugu horeeyey oo dil jideeyey qaabiil bimacnaa bilaabay waa qaabiil cid ooga horaysa dil ma jirin asigaa wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey oo dil bilaabay buu ahaa idan kelimada sanna macnaheeda waxa weeyaan barnaamij cid kaaga horaysay aysan jirin ood adiga hadda bilowday ood jidaysay waay waxyaalaha khayraadka markaa waa la ogol yahay in la bilaabo oo xadiidkaabaa u daliil ahoo tusinaayo walidaalika saxaabada nabiga ridwaanullaahi calayhim fahamkooda sidaa buu ahaa xataa malaa'igta fahamkeeda sidaa buu ahaa maxaa yeelay waxaa dhacday maalin maalimaha ka mid ah iyadoo salaada la dukanaayo samica allaahu liman xamidahu markuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam nimaa wuxuu aqriyey erayo oo asiga uu bilaabday oo nabiga uusan ka maqlin wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiihi buu yidhi erayadaas waxay ahaayeen erayo ninkaa asiga u ikhtiraacday bay ahaayeen erayo nabiga uu ka maqlay ma aysan ahayn salaada markii laga baxay nabiga wuu weydiiyey oo wuxuu yidhi man ilmutakallim yuu ahaa ninka ku hadlaayay erayada cusub wuu aamusay oo wuxuu is yidhi arrintaan eedan bay ka imaata markaasuu nabiga yidhi innahu lam yaqul ba'san wax mushkilaa iyo wax baas ma uusan sheegin yuu ahaa ninka markaasuu ninka yidhi ana yaa rasuulallah anigaan ahaa ninka kelimaadkaa ku hadlay muxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam mubtadic baa tahay miyuu yidhi ibtidaac fi diin baad la imaatay waxaadan aniga iga maqlin baad la imaatay miyuu yidhi laa sidaa ma dhig waa u hambaliyeeyey oo uu ammaanay wuxuu yidhi laqad ra'aytu bidcatan wa alaaiina malakan yabtadiruunaha ayuhum yaktubuhaa awalu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 30 malag baan arkay oo degdegayaan oo u kala degdegayaan kalimaadka adiga aad ku hadashay qoraalka malag walbana wuxuu rabaa kii ugu horeeyo qori lahaa kalimaadka inuu asiga noqdo waa kalimaad asiga ninka uu ikhtiraacay laana fahamka saxaabada wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mar walba oo minbarka uu fuulo waa ku soo celcelin jiray erayga kullu bid'atin dalaala khudbad walba uu soo jeedinayo erayada waa ku soo qaadi jiray maca dalika haddana waxay fahamsanaayeen saxaabada bidcooyinka xun inuu nabiga u jeedo oo kulludaas caamun maqsuusun inuu nabiga u jeedo ayay fahamsanaayeen saadaradeed waxaan bacdama asiga uu wanaag u arkay salaadii iska xadidneed gudaheedii maxaan iraahdaa kula yimid erayo asiga uu ka helay oo uu arkay inay wanaagsan yihiin buu salaada gudaheeda kula yimid nabiga calayhi salaatu wasalaamna uu taqriiriyey ha taqriiriyeen waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan arrintan nabiga taqriiriyey bidca ma ahayn taqriirka nabiga maxaa ka horeeyey waxaa ka horeeyey saxaabiga inuu ku dhiiraday wax nabiga uusan ka maqlin inuu asiga la yimaado malaa'igta naftarkeeda intuusan nabiga taqriirinin waa ayagii u degdegeen kalimaadka inay qoraan oo kale ila fahamkooda wuxuu yahay kullu bid'atin dalaala markuu nabiga dhahayo kulladaas inuu nabiga u jeedo caamun maqsuusun inuu u jeedo kale marka waxa weeyaan labadaas shubho ayaa ugu xoog badan shubuhaadka ay soo qaadaan waxaadna u moodaa waqtiga inuu gabagabo yahay soo gaabina ustaadi waxaan u malaynayaa waa waqtiga inuu aad u yar yahay qolooyinkii kale ee raggii maadixiinta ee axbaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaamna way nala fadhiyaan maanta ma aanan maqlinba madxigii iyo salligii